مع محمد محمود وصعتي إلى أنت اللي منها ولا ما يشتروا ساعة وكذا مرنا مع الثلاثين حق دون الطرح ويشك حقه نكاس كرا ويشك حقه جرى عملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام وعلى إيو قالق أميل والبودوني ذكا جوكتان وسود وهذا جانل كيغا هالكا ديغلا سعوتان وافهيم الجانل أمال oo ugu dambeyntii socotay ayaa maanta raba inaan ka hadlo asxaab badan oo igu xiran ayaa waxay iga soo codsadeen mar walba inaan u soo gudbiyo halka ay marayso xaaladda ammaan walaalo badan ayaa u soo duceeyay run ahaantii halka qaar badan ay iga soo codsadeen inaan lambarkeeda u soo gudbiyo si ay u caawiyaan maasha Allah walaalaha dhammaan way mahadsan yihiin sida u jeedaan ammaan maanta way socotay maasha Allah Ilaahay ayaa mahad iska leh aadaan ugu mahadsantiin dhammaan walaalaha u soo duceeyay annaga waxa uga damqanayna waxay ahayd gabar Soomaaliyeed gabar walaasheena oo lugta dhaawac ka soo gaaray qaar badan way wada yaqaanaan gabadhan halka qaar kalena laga yaabay in ay maanta ugu horeyso amaal sida la wada socoteen nin ay kala tageen oo wiil ay u dhashay ayaa lugta xabad uga dhuftay kadibna dhaawac culus ayaa ka soo gaaray intaas kadib wadanka Turkiga ayaa loo qaaday waxaana loo diyaariyay 3 qalliin in ay marto qalliinadii kadibna lagu guuleystay alxamdulillah waana u jeedaan maanta in ay ka wanaagsan tahay shalay way fadhiday haddana waxa u jeedaan in ay socoto oo saanta ay wado qofka markuu qalliinka gala kadib waxaa loo keenaa birtaan ama birahan gacmaha lagu qabanayo oo lagu ogaanayo qofka in uu socon karo ama in uu saanta ama lugaha in uu kala wadi karo taasna waxay ku cadeynaysaa inay rajo aad u wanaagsan meesha ka muuqato oo gabadha walaasheen ah lugaheedii ay dib ugu soo caafimaadeen aadna way u faraxsan tahay oo waa dareemi kartaan qof siduu u fadhiyay maanta soconaya inuu farxad badan uu dareemayo marka maasha Allah walaalaha Soomaaliyeed dhammaan intii walaasheena caawisay intii u soo duceysay hadalka wanaagsanba waa sadaqo intii u soo duceysay kulli way mahadsan yihiin markasta ayaana loo baahan yahay Soomaalideena midka dhiban iyo midka xanuunsan inaa u duceeyno qofkii waxaystana qofka kale uu garab istaago taas ma ahanin wax aan isfareyno marka waa mahadsantihiin xaaladda walaasheena halkaas ayay maraysaa aad ayay u fiican tahay intii xanuunkeeda ka damqatay iyo intii maxal ah u soo duceysay kulli waa ku mahadsantihiin waan u wada jeedaan xaaladeeda inay hadda maasha Allah meel wanaagsan ay marayso inta u hartayna waxaan ka baryayaa walaasheena in uu Ilaahay ma aragtay u fududeeyo xanuunka haayan inuu caafimaad Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu bedelo adinkana waa mahadsantiin dhamaantiin sida wanaagsan ay ila socotaan sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh